السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo video gabar walaashay ii soo dirtay. dabcan hadda ka horna waan ka hadlay, waxay igu tiri wiilkii ayaa weli laga hadlayaa Maxamed Daawud ahaa ee Mareykanka ku noolaa. runtii waxa weeye aad iyo aad baan uga xumaaday aabahaas sida wiilkiisa uu ula hadlay. wiilka yar waa dhalinyaro horta. waxaa la yidhi nin yari intuu geed ka boodo ayuu tala ka boodaa. dabcan dhalinyaro ha ahaado, laakiin waa nin maanta caqli leh. kolley caqli ku filan inuu leeyahay ma u malaynayo. waa iska dhalinyaro, waa dhalinyaro dhaldhalaalka ma aragtay Yurub aragtay marka oo wax kale mooday. runtii aabahan Soomaaliyeed dhowr jeer ayaan arkay isaga oo cabanaya, isaga oo ooyaya, isaga oo maxaan ku irahdaa gabadhiisii ka dhimatay u ooyaya. waayo waa aabbo, waa beer wax dhalay. caruurtiisana way ka fogeyd, isaguna Mareykan buu joogay, caruurtana Sweden. caruurta gabadhi waa dhimatay, waa isdishay baa la yiri. sababtay isu dishayna ilaa ay hadda cid taqaana oo og ma jirto. waxa maxaan ku irahdaa message ay ka tagtayna ma laha. cid historydeeda ka sheekeynaysa oo ogeydna dee dabcan ma laha. kolley ma garanayo wiilka walaalkeed wuxuu u sheegi waayey walaashii sababtay isu dishay. kolley sabab un baa jirta. haddaanu xanuun jirin, xanuunkana wixii keenay baa xataa jira oo la rabay in la ogaado. gabar yar oo adduunku u cusub yahay, oo dhalinyaro ah, oo dee xilligay soo baxaysay ah, inay isdisho nafteeda nacdo waxa ku qasbay wax yar ma aha. dabcan waxbaa jira, balse xaqa ilaahay ha soo birbiriyo, xaqa ilaahay ha soo saaro. walaalkay Daawud dabcan hadda ka hor baan ka hadlay. waxaan daawaday Malyuun Rooble oo ka hadlaysa oo tiri waxaanu wada deganayn guri ii kiraysnaa, ayay qolka deganayeen. eedadood ayaa si xun u gali jirtay oo uu Daawud uga tegay walaalkeed, oo Daawudna uu Mareykan jiray uu kusoo biilayay caruurta. eedaduna si xun bay ula dhaqmaysay. marka cuqdadaas halkaasay ka qaadeen caruurta baan anigu kolley u malaynayaa. videogayga horena waan kaga hadlay, balse haddeer waxa weeye wiilkii ayaa aabihii si xun ula hadlay, runtii oon wanaagsanayn, oo akhlaaqdana ku wanaagsanayn, islaamnimadana ku wanaagsanayn. inkastuu nin yar yahay waan u cudur daaraynaa. laakiin nin baa wuxuu yiri baa la yiri sagaaro soo ima barato. meesha markaan arkay in ay ku jirto Hana Abuukar baan anigu candhuuftayda dib u laqay. Hana Abuukar meel ay ku jidho oo caruur ay meeshaas ay kaga hadlayso, waxa weeye balaaya ku jirta. Hana Abuukar wanaag kama shaqayso. Hana Abuukar waa taqaanin Soomaaliyey. Hana Abuukar dad badan baa ka cabanayay. Hana Abuukar dad aan yarayn ayaa ay dhibaataysay oo dhibaatadooda ka hadli jiray. siday u dhibaataysay, siday wax u yeeshay, siday naag baan dhagaysanayay hooyo Soomaaliyeed oo tiri gabar 12 jirtoon dhalay baan iri kaala ii canoono iila hadal. gabadhii wayba iiga sii dartay bay tiri. heer oo waxay gaadhay tiri gabadhii dacwayso gurigiina ka tagto. waxaan ogeyn reer Burco caruurahoodii ay ku haysato, caruurtii ay qarsatay, oo waa qarsatay la dhahayay, oo Burco xataa laga soo hadlayay, oo maxaan ku irahdaa isha Denmark laga soo hadlayay. marka Hana Abuukar meeshay gasho balaa gasha. maxaa kuu geystay walaalkay Maxamed Daawudow? maxaa Hana Abuukar soo dhex gashay arrintaada? Hana Abuukar wanaag kama shaqayso.
gabar yaroo aabaheey baa ifuulay leh bay keentay balaayay keentaa hana abuukar waa laga nastay waayadan waa laga nastay hadday soo laba kaclaysay hadda daa-uud ayay faraha la gashay balse waxaan u jeeday qoftii milyuun roob la ahayd oo iyadana wadwadata naahooy ka joog milyuun roobloy milyuun roobloy ka joog yay caruurta hana abuukar kaa dareersane ka joog haddaba waxa weeye hana abuukar waad ogtihiin intaasaad social media ku jirteen intaasaa laga hadlaayay muqdishaad ogeydeen wiil maskiin ah oo kanada caruurtiisa iyo xaaskiisa intuu ka kaxaystay uu muqdisho geeyey oo ninka uu ahaa nin businessman ah oo nolol wanaagsan ay deganaayeen ay ku noolaayeen guri weyn ay deganaayeen oo qurux badan nolol wanaagsan xaaskiisa caruurtiisa ku jireen qur-aanka u baranayeen inay harda daf soo tiri oo dhex gashay reerkii oy walaaqday oy kala tuurtay oy naagtii iyo caruurtii soo kaxaysa baa layiri ay kanada kusoo celis marka soomaaliya idinkoo waxaasoo dhan og yaa maxaa hana abuukar maanta yaa boorka uga jafteen muddaa laga nastay hana abuukar oo isgabinayso isdhakinaysa oo gabanaysay oo isnabaysay marka maanta waa kaas walaalkeen daa-uud waxay tiri wiilkii baan kuu maslaxayaa ayaanta hore wiilka si xoogaa fiican buu u hadlaayay fiidiyooyadii oo dhan baan daba galay oon daba raacay faloo dhahay laakiin markii ugu dambeysay waxaa lagu soo shubay saan u jeedno waay uu sheegi waayay ayaantii hore maalintii hore ee u hadlay sida wanaagsan u hadlaay oo in la heshiisiye la rabay muxuu u sheegi waayo waa idilay hadeer ka hor markuu hadeer leeyahay balse waxaan u sheegayaa ina daa-uudow waxaan ku rahaa ina maxamed daa-uudow waxaan kuu sheegayaa nin weyn baa tahay maanta eedadaayoo kale baan ahay habreertaayoo kalean ahay waaridkaa baan ahay waxa weeye nin weyn baa tahay maanta sida la sheegay 22 buu jiraa baa la yiri marka nin weyn baa tahay aabaha xilligan inaad qabsato oo tiraahdo bari buu i dilay wax fiican ma aha waa ceeb waa shame wax kastoo dhacay waxaa lagu yiri aabaha la heshii sharcigiisa iyo maxaan ku iraahdaa wixiisii si uu maxaan ku iraahdaa u soo ceshado aabaha la heshii cadee proof samee waxaad samaysay waxaad proof sheegtay iska daayay isagii baad ku soo jeesatay oo lagugu soo diray oo maxaan ku iraahdaa aad leedahay waa i dilay iyo waa i garaacay hadda ka hor u i dilay iyo waa i dilay dheh baa lagu yiri war nin weyn baa tahay hadeer waa i dilay maxay tahay wax intaasoo sano kasoo wareegay aabaha dhididkiisaad cuntay dhabarkiisaad ka timi caankiisii dhiiggiisii baa tahay wuu kuu soo dhididay wuu kuu soo shaqayn jiray haddii eeddo ku xumaysa isagu kuma xumayn isagu goobta ma joogin isagu maraykan buu kuu xamaalayay waxaad cuntay waxaad xirato iyo caafimaadkaaga lacag lagu bixiyo ayuu bixinay wuu ku korinay lacagta lagu korinay buu bixinay maanta marka aaba hadda ka hor i dilay wax fiican ma ah meeqaana la dilay meeqaana la garaacay aabi iyo hooyo iyo waalidka kale xataa ayna garaaceen haddana waana dilay iyo waxaas anagu ma dhahno waxa weeye anaga muslim baan nahay waxaan nahay Soomaali dhaqan baan leenahay ilmaha horta in la dilo ma aha runtii muslimkana ilmuhu ma dilaan diintayadana ma qabto in ilmaha la dilo balse waaridka hadduu xanaaqo oo wax yar uu wax kugu dhufto ma aha in aad qalbiga ugu hayso oo maxaan ku raahdaa warigaa tiraahdid bari buu dilay oo lagu yiraahdo aabaha yaa rikaato ku saar waa i dilay dheh dambi cusub u samee in lagu dhaho ma fiicna ma aha marka waxaa weeye waxaa tiri cadayna waa u haystaa maa tiri ma aqaan caday muxuu yidhahaa cadayna way la taalaa muu yiri ma garanayo oo wuu haystaa gacantana wuu ku haystaa baa tiri gacantana wuu ku haystaa
caddayna wuu haystaa gacantana wuu ku haystaa baa tiri calashaan adiga oo ka wada aabbaha inaad dhibaataysay oo daraadda sharcigii loogu diiday oo daraadda maxaan ku idhahdaa maanta uu u yahay homeless oo daraadda uu u yahay maxaan ku idhahdaa bilaa shaqo oo daraadda hadda la leeyahay waa la celinaya waddankaa laga celinayaa it's not fair yaa ina maxamed daa-uudow magacaaga ma garanayo laakiin it's not fair waa iloobay magacaaga dad soo qoraay waa ujeeda laakiin iloobay sorry waxa weeye aabbaha inaa u abaalgushay u gudday ahayd aabbaha haddii la isugu tegay oo familka reer abtiga ay isugu tageen aabbaha waad weynaatay waad kortay keligii weeye walaasha meesha way ka baxday way dhimatay aabbaha inaad garab istaagtay ahayd runtii labada dhanba waaridkaa weeye reer abtigaa reer aabbaha laakiin haddana aabbaha maadaama uu dhibaataysan yahay waxa weeye xabsi aad gelisay adiga foodkaaga xabsi uu ku galay dacweysay sonkor uu qabo depression uu qabo in ma aragtay aad aabbaha haddana dhibkii usii kordhiso markii la rabay inaad caawiso ma aha oo lagugu soo diro dabcan waa u jeednaa waa lagugu soo diray dadka isku diraya dadkow ilaahay ka baqa kule ilaahay ka baqi maysaani ilaahay ka baqa ilmiya waaridkiis lama dhex galo ha isku dirina wax fiican ma aha ina maxamed daa-uudow adna ilaahay ka baq nin weyna baa tahay qaangaar amaanta dembigaaga waa la qorayaa caasi wax fiican ma aha caasi cadaab buu galaa aakhiro adduunkana rafaad buu maraa adduunkana kuma raaxaysto rafaad iyo dhibaatuu maraa aabbaha ka duceyso aabbaha sharcigii sida loo sii oon loo celinna aabbaha runta sheeg yaan waxba lagugu dirin runta sheeg tan kale waxaan leeyahay walaalkay maxamed daa-uud ha habaarin iska daa iskaga ducee waa intaasoo ilaahay soo hadeeyaa waaridka ducadiisa waa lagu tanaadaa waa lagu barwaaqoobaa waa lagu baraaraa adduun iyo aakhiraba heer baa lagu gaaraa marka waxaa weye iskaga ducee ilaahay ha soo hadeeyo ilaahay ha kuu soo hadeeyo ilaahay ha kuu soo jeediyo ilaahay inta dulmiga kugu wada ilaahay ha kaa qabto maxaan ku idhaahdaa adigana isdaji la iskama daba rido adduunkan cidna naftaada ka fikir tacaada aada leedahay ka fikir ninkan nin weyn weeye waa dhashay waa soo korisay waa soo kabisay intaasaad soo la ekaysiisay maanta nin dhalinyaro xoog ah weeye adiga hadda sankoraad qabtaa marka iska daa ha iska daba ridin waxaan waa adduunyana lama daba cararo iska daa faraha ka qaad ammaansii naftaada ka fikir caafimaadkaaga ka fikir waxaa weeye faraha ka qaad leave it alone ninkaas iska daa ammaansii u ducee keliya u ducee jaas iskaga ducee isagoo socdo isagaa kuu imaanaya biri insha allah bidmillaah kariim markuu soo caqlisto uu soo waantoobo isagaa kuu iman doona marka adiga un ha ka walwalin walwal ha isgelin dhibaato ha isgelin xanuun kale ha isku ridin come down naftaada ka fikir isagii adiga laba nafaa kala leedihiin qofka xanuunsanaya waa adiga isaga ma xanuunsanaya waa nin dhalinyaro ah wuxuu ka fikiraya male waxaan uu sameeyey uu ugu talagalay caqli yaraan hadday ka tahay iyo haddii kaleba lifekiisu wadanaya laakiin adigaa dhibaatoonaya marka adiga naftaada ka fikir naftaada survive gare tan kale dadkan wax kuusoo duubayo duub ayagana duub ku dacweyso evidenceyaa haysataa marka waxaa weeye daa-uudo walaalkayo isdaji ilmahan qurbaha jooga lagama daba cararo laysma raaciyo ilmo dadkan soomaalida fahmaya ma aha ilmo ma aha maxaan ku rahdaa sidii ilmaheeni soomaaliya jooga rasbakti leh oo waaridkood aada u rasbakti garaynaya ma aha waa dhaqan kale dad wata
waa dad kaloo siloon oo si kala ah marka maanta waa ku wada kacay kulli caruurii macaa kuwayga waa ku darayaa marka waxaa weeye walaalow isdeji naftaada ka fikir wallaahi naftaada wax kaaga muhiimsan ma jiraan cudurro kale hor leh ha isku ridin haddaad sonkor qabtaa sonkorta intaa bug ku tiraahdo ha isku dhiman intaa nin israacinaysa weynaaday oo qawsaar ahoo 20kii dhaafay naftaada ka fikir waryahe maxaan ku idhahdaa maxamed daa-uudow waana ku salaamayaa walaalkay isdeji iska fikir adiga iska taxadir ninkaas waa weynaaday ha israacinin ha isa soo saaro meeshoo doona ha ka baxo derbigu doona ha maro go ahead deh salaamu calaykum